Ku soo dhawaada qaybtii ugu dambeysay ee walaalaha Insifo oo aan halkan idinkaga sii ambaqaadno. Notch kaligiisa ayuu taagan yahay warna uma hayo reerkiisa in ay dib isugu soo laabteen. Notch waxa uu raadinayaa ugaar ay ka dhargeen xayawaano kale. Waxa uu u muuqdaa mid dayacan la'aanta walaalkiisa iyo qoyskiisa. Deegaanka uu cabsi la'aanta ku dhex mushaaxi jiray maalin maalmaha ka mid ah, maanta asaga ayaa lagu eryanayaa. Yaxaasyadu webiga dhexdiisa ayay ku haystaan ugaar. Waa maroodi, waana hilib maalmo dhan ku filan 100 ruux. Maadaama uu gaajaysnaa maalmo fara badan, ugaarta ayuu sankiisa la soo raacay. Kaligiisa markii uu yahay waa libaaxa aan qorshaysan waxa uu samaynayo. Haatanna waxa uu ku dhiiranayaa in uu galo biyo ay ka buuxaan yaxaasyo fara badan. Yaxaasyada ayaa meel walba isaga yimid si ay qayb uga noqdaan waliimada. Ma aqbalayo si aan wanaagsanayn in lagula dhaqmo. Urka ka soo baxaya baqtiga ugaarta iyo fawdada ka socota webiga dhexdiisa ayaa waxa ay soo jiidatay mid ka mid ah libaaxyada goosha ah. Waa mid ka mid ah xibnaha qoyska Insifo, kaligeedana ma aha cidda daawanayso waxa ka socda webiga dhexdiisa. Waxaa yimid qoys maroodi si ay u xaqiijiyaan waxa ka socda webiga dhexdiisa. Laakiin Notch ma uusan danayn maroodiyadan. Ma uusan arkin muddo isbuucyo ah mid ka mid ah xibnaha qoyskiisa. Mid walbo labadooda ka mid ahna waxa uu muujinayaa digtooni. Si tartiib ah waxaa muuqata Notch inuu ka baxay digtoonidii. Laakiin gooshaan ma aysan sii joogin.
Nooj mar kale cidlo ayuu dareemayaa. Laakiin aragtida goosha ayaa waxa ay gelisay rajo weyn. Mar kale ayuuna tijaabinayaa. Si tartiib ah laakiin si sugan ayaa waxaa soo muuqday wejiyo ka mid ah qoyskii Insifo. Ayadoo ay hogaaminayso goosha, waxaa dib u soo laabtay Nooj reerkiisa. Reerkii uu muddada 3 sano ahayd uu ilaalinayay, haatan gacantiisa ayay dib ugu soo laabteen. Ilaa iyo hadda walaalkiisa dib uguma uusan soo laaban, laakiin isagu waxa uu go'aansaday inta karaankiisa ah in uu reerkiisa caawiyo. Maadaama walaalkiisa Jiif uusan taagnayn garabkiisa, maalmaha Nooj ee ka hogaamiye ahaan waa ay xadidan tahay. Sheekadiisa waa mid guulaysatay, waana aabba daryeela carruur fara badan, welina wuxuu boqor ka yahay deegaanka Insifo ee dhaca webiga Wangua ee waddanka Zambia.